darteed waxaan kuu sheegayaa macallin ha noqon keliya macallin inta soo orda keliya wax u qora sabuurada arday ugu qora dan kadibna u sharaxa waxay yihiin kadibna ma islaamo dhaha horay kitaabka labaad oo ugu saxsan oo dunida yaala warninkaana muxuu yahay warninkaana muxuu sameeyay warninkan sidee buu heerkan ku gaaray ilaa wallahi heerkaas wuxuu ku gaaray maalin maalmaha ka macalinkiisa Isxaaq ibn Rahaawi kaas macalinku wuxuu ku dhigay maxamed oo adiga ayaa rajeynaya inaad noqotid amiirkaas anta la dunida bedeli kara hadal afka ka soo baxayna waxay macna sababi kara inuu noo soo baxo maxamed al-faatixi iyo imaam bukhari وسلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي ويفيض دمعي بالبكاء وتخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا فرينتا مسموقالكم وحيا جارسة قفل بمعنا قرنسي فضلا يجارسي وحارة مانتنا وحيرا مهمة عن نفتي هذه لما معلمينتي قفل بعنا ودايقون تاسنا وحاواي أمد دلنيرة أمد هدي تهي دلنيرة قبول له ما شاء الله أمد داس أمد ما شاء الله أيان نكون السام هدي أمد داس دلنيرة ضعيف أو أحباب يعني السوكر لين أمد داس أمد هوس يعني هوس يعني ميلا سكون الوايد صدرت si ay dhalinyarada shabaabkeena maxaan ku dhahay yani maxaan ku dhahay ay u noqdaan kuwa quwad leh waxyaalaha saacideyn kareen ummadda dhalinyaradena ay noqdaan kuwa ma sha Allah waxa kamid ah in macallimiinta wax barta dadka wax tarbiyeeyo macallimiinta inay noqdaan kuwa ku abuura qulubta dhalinyaradena hami weyn iyo in maxaan ku dhahay shaqo weyn ay sugayso sadarta waxaan ku sheegayaa macallin ha noqon kaliya macallin inta soo orda kaliya wax u qora sabuurada arday ugu qora dan kadibna u sharaxa waxay yihiin kadibna ma islaamo dhaha ha noqon bal waxa noqotaa macallin maxaan ku dhaha ardaydu wax barayo macni saameyn ku yeesha bal waxa ogaataa macna hadalla afka ka soo baxay in mararka qaar ardayga meelaha ardayda wax u dhigaysay ee saameyn weyn ku yeelanayso sadarta waxaan soo ku soo qaadanayaa ninka la dhawaad taqaana imaam bukhari dhagtaa mar walba maqsha imaam bukhari bal qof walba maanta diinta ilaah ka sheekeen wuxuu soo qaatay xadiis kadibna muxuu dhaha rawaahu imaam bukhari bal waxaa la sheegaa kitaabka adduunka yaala kitaabka ugu saxsan ma taqaanaa waa quraanka ilaahay kitaabka labaad ugu saxsan ma taqaanaa waa kitaabka qoray imaam bukhari bal cashiib bal ninkan qoray kitaabka labaad oo ugu saxsan oo dunida yaala warninkaana muxuu yahay warninkaana muxuu sameeyay warninkan sidee buu heerkan ku gaaray ilaa wallahi heerkaas wuxuu ku gaaray maalin maalmaha ka macalinkiisa Isxaaq ibn Rahaawi ayaa wuxuu yiri Allah waxaan jeclaan lahaa inaan helo arday yani isku soo ururiya axaadiista saxiix ah ها لأن قفك دور بأحاديث صحيحة مربى ميل أيو آدي جري مربى ودن أيو آدي جري لكن معنا كان وحيد ملاقيا بارتين متكمدة إنه أنتو كسر رهب حتى نقرأ أحاديث الصحيحة كتاب كفر سي مركز قفك رادني أحاديث تاسي يقف ذاته كلمة دي كسر بحد معنا كي محن كل إسحاق بن الرهاوي أفكيسة أيا وحيد تابت محن كل قلبي إمام البخاري مركز وحيد معنا أنا جواي وحون معنا عراشي مضحي محن كل ملبي كنت أحرتي سي مركز taas fikirkaas uga dhabeeyo markaas magaalo ilaa magaalo kale tagay ilaa uu qoray kitaab maanta maxaan ku dhahaa la dhaho waa kitaabka ugu saxsan imaam maxaan ku dhahaa oo dunida la kadib quraanka ilaahay waxa soo kale tusaale macna kugu filan ninkii furtay Qustandiniya magaalada Istanbul magaalada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wixii waa la furan doonaa 800 sano kadib xilliga waxa rajay inay tahay hijrada ayaa la furtay laakiin siyaa furtay ma taqaana maxamed al-faatixi ayaa furtay maxamed al-faatixi ma taqaana cudi yahay maalmaha kamid ah soo yar macalinkiisa quraanka bari jiro diinta bari jiro ayaa intuu soo kaxay ayuu wuxuu keeni jiray Istanbul arteeda Qustandiniya dhigir waayay hore kadib markuu keen meesha badda oo xeebta ayuu wuxuu uga sheekan jiray inuu macni farta ku fiiqi jiray magaalada soo jiray maxamedo magaaladaas ma taqaana rasuulka wuxuu yiri ni'mal amiiru amiiruha wa ni'mal jeeshu jeeshuha rasuulka wuxuu yiri hadda ka hor rasuulka wuxuu yiri magaaladaas waa la furan doona ninka furan doona amiirka dagaalkaas macni taliyahana waa nin maxaan ku dhahay nimcada ilaahay ay ku habsatay ciidankaasna waa ciidan nimcada ilaahay helay markaas macalinku wuxuu ku jiray maxamed oo adiga ayaa rajeynaya inaad noqoto
noqotid amiirkaasi anta alamiiru yowmaha adiga ayaa rajeynaya inaad noqotid amiirka maalinta amiirka furan doona maxaan ku dhahaa ii sheeg magaalada Qusطaandiiniya maxamed hadalladaas ku soo kara asagoo lagu leeyahay macalinkiisa wuxuu ku yiri adiga ayaa rajeynaya kadib maxamed wuxuu noqday ninkii furtay maxaan ku dhahaa magaalada Qusطaandiiniya magaalada Istanbul waxa wallahi maanta rabayna fariintii qof walba macallin aan u sheego macallin waxaad ogaataa hadallada afkaaga ka soo baxaya kelimadaha afkaaga ka soo baxay waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda wax aad wax u dhegeysa mararka qaar waxaa laga rabaa macallin inaad ogaatid hadallada ku hadlaysa inay saameyn ku yeelanayso mararka qaarna xataa soo diyaarso oo ku hadalla aad is leedahay dadka ku hor fadhiya ayay saameyn ku yeelanaysaa waana ka xumaa maanta mararka qaar macallimiinta inta badan in laga yaabo hadalla afka ka soo baxay ay noqoto wadamiyo warkanoo kale laakiin macallin waxaan ku leeyahay ha soo qaadan maxaan ku dhahaa maxaa la dhihi jiray tan wax lagu qoro sabuurada wax lagu qoro kadib macallin ereyadaha sharixin waxaad ogaataa inaad tahay qof dunida bedeli kara hadalla afka ka soo baxayna waxay sababi kara inuu noo soo baxo maxamed al-faatixi iyo imaam Bukhari waa maasantii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.